Assalaamu calaykum. Barnaamijkeenan waxaynu ku soo qaadan doonaa mabaadi'da nolosha ee aan lagu qiimeyn karin lacag amaba aan lagu iibsan karin lacag. Haddii aynu soo qaadanno qodobka koowaad, oofinta. Oofintu waa alaab qaali ah ee ha ku iibsan ama ha ku gadan qiimo hoose. Oofintu waa ay yar tahay in dadka oo dhan laga wada helaa. Keliyata waxaad ka helaysaa dadka heerka sare ka gaadhay akhlaaqda. Marka laga yimaado inay diinteenu ina fartay balan oofinta, waa mid ka mid ah akhlaaqda ugu wanaagsan ee dadka lagula dhaqmo. Innagu haddii aynu Soomaali nahay xaggaas waynu ku liidanaa oo ma naqaana badankeena inaynu ballanta waqtigeeda ilaalino. Waxaad arkaysaa dad aan xataa islaam ahayn oo inagaga fiican xagga ballanta, taasina waa mid aan wanaagsanayn. Qodobka labaadna waxa uu yahay, haddii aad doonayso inaad murugooto, ku noolow wixii tegey. Haddii aad doonayso inaad warwashana, ku noolow waxa soo socda ee mustaqbalka ah. Haddiise aad doonayso deganaansho, ku noolow waqtigaad hadda joogto. Walaalkayow ama walaashayey, ha ku talax tegin ka fikirada wixii tegey iyo ku mashquulidda waxyaabo aan la gaadhin. Keliyata waqtiga aad nooshahay si fiican uga faa'iidayso. Abwaan Xaaji Afqalooc Allaha u naxariistee, isaguna waa kii isaga oo waqtiga saddexdaa u kala qaybinaya waa kii lahaa, saban tegey mid weli socdiyo saaka waxa jooga. Saddexdaa waqtaa xaal adduun lagu sifeeyaaye, soo noqod ma jira wixiise adufood tagaye. Waxaasaa dambeetiyo berrina waa su'aal maqane, waxay taladu kuu suuban tahay subaxa aad joogto. Qodobka saddexaadna waxa uu yahay, adduunyadan waxa aad doonto ka kasbo, laakiin waxa aad kaga bixi doontaa sidii aad markii hore ku soo gashay. Icmal lidunyaaka kaannaka taciishu abadan, wacmal liaakhiratika kaannaka tamuutu gadan. Haddii aad xaqiijiso isku dheelitirnaantaas u dhaxaysa adduunka iyo aakhirada, hubaal waad guulaysan doontaa insha Allah. Qodobka afraadna waxa uu yahay, haddii ay doontu ku iman weydo, xaggeeda u dabaalo. Maxaynu uga jeednaa? Waxaynu in badan taagnaanaa innagoo oo sugayna inay fursaduhu inoogu yimaadaan waddadeenna. Laakiin mararka qaar waxaa waajiba inaynu abuurano fursadaha laftooda iyagaba, balse sidaa liddigeeda yaynaan inta aynu meel iska istaagno aynaan sugin fursadaha. Qodobka shanaadna waxa uu yahay, in badan muhiimad sii salaadaada. Tani waxa ay in badan ka qurux badan tahay adduunkaaga kale ee. Hayso xadhigga Ilaahay, salaadana ku khushuuc, waqtigeedana ha ka dib dhicin. Maxaa yeelay, wax kasta oo aad doonayso inaad hesho iyo wax kasta oo aad ka cabsi qabto inaad weydo ama ay kaa tagaan, waxa ay gacantiisa ku jiraan ka aad hor istaagayso. Qodobka lixaad ee xigaana waxa uuna leeyahay, waqtigani waa mid socon doona, inkasta oo ay gaadhsiisan tahay murugadaada iyo farxaddaadu. Xasuusnow sunnada nolosha ah ee geedka go'anka ah, taasoo ah isbeddelka. Sidaa awgeed, ha ku talax tegin farxaddaada, sidoo kale murugadaadana ha ku talax tegin. Qodobka toddobaadna waxa uu yahay, adduunyadan wax kasta oo yaallaa waa lacag, laakiin waxaan kaaga digayaa inaad lacag qaaliya ku bixiso shay rakhiisa. Noloshan waxaynu wajahaynaa dhibaabo, tanina waa sunnada nolosha, laakiin waxaa lagama maarmaana inaynu si maskax badni leh uga gudubno. Waxaa waajiba inaynu garanno halka aynu ku bixinayno awooddeenna, si aynu nolosheenna ugu horseedno wanaag iyo farxadba. Qodobka siddeedaadna waxa uu yahay, cabsidu waxa ay dishaa shay kasta oo qurux badan. Ogsoonow cabsida badani waxa ay kuu horseedi kartaa dib u dhac, waxaanay kaa hor istaagi kartaa inaad hore u socoto ama aad tadawur samayso. Balse isku day inaad tijaabiso shayga aad ka cabsanayso si ay cabsidu kaaga baaba'do. Qodobkeenna sagaalaadna waxa uu yahay, adigu maad khasaarin ilaa inta aad ka joojinayso isku dayga. Khasaaraha ama fashalku waa xaalad maskaxeed oo aad dareemaysid inaanad awoodin inaad sii joogtayso shay. Markii aad joojiso isku daygaagana waxa aad go'aansanaysaa goortii aad fashilmi lahayd. Ogsoonowna guulaha ugu waaweyn ee nolosha laga gaadhay waxa ay ku yimaadeen joogtayn iyo u dhabar adayga dhibaabaha. Barnaamijkeenni maantuna halkaa inoogu joogo. Inta aynu barnaamij kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum.